Soomaalidu waxay u haystaan in jannada tahriib lagu galo. Qofkii oo dulmi ku dhintay isagoo dad dulminaya waxay leeyihiin Ilaahow jannadii gee bay iska leeyihiin. Waxay moodayaan in afkooda janno lagu geynayo. Hadda ninkan sawirkiisu idiin muuqdo wuxuu ka mid ahaa ciidamadii maamulka Muuse Biixi ee Hargeysa iyo dhulka laga keenay Gabiley iyo Burco iyo meelaha Berbere iyo magaalada Laascaanood dadka madfaca ku garaacayay, guryaha ku duminayay, qudaacu duruqa ahaa, dariiqyada goynaya, wadooyinka dadka u galayay, magaalo dhan oo la degan yahay dhowr boqol oo kun oo qof degan tahay intay xero ciidan ka ag samaysteen madfaca ku tuurayay soo weerarayay oo dad muslimiina dhulkoodii iyo naftoodii iyo maalkoodiiba ku haysta. Kaliya waxay ku dagaalamayaan waxa weeye ciidamada Somaliland waxay ku dagaalamayaan kaliya waxa weeye SNM baanu ahaan jiray, qabiilada deriska iyaga ana waxaan rabnaa dhulkooda inaanu qabsanno. Waxaasi diin maaha, mabda'na maaha. Magaalo laga adimayo oo dad muslimiin degan yihiin, dadka deegaanka deganna waxaa metela culimadooda, garaadadooda, cuqaashooda, waxgaradkooda wuxuu go'aamiyey ahlul xalil wal caqdi ayaa deegaankaas metela. Hadday Somaliland ku darsanayaan, hadday maamul samaysanayaan, hadday meel kala aadayaan, dadka meesha degan iyagaa dhulka awowgood ka dhaxlay oo xaq u leh. Marka ninkan oo kale dad kale Allah u naxariisto waxay moodayaan in jannada tahriib lagu galo oo qofkii oo dulmi iyo xaq darro ku dagaalamaya markuu dhinto haddii la yiraahdo Ilaah u naxariisto jannadii gee inuu galayay moodayaan. Haddaad ka naxaysid waxay ahayd inaad adduunkiisa iyo aakhiradiisaba badbaadisid oo unsur akhaaka daaliman oo madluum aad ka dhigtid. Yacni haddii uu qofka ehelkaaga ahi la dulmiyana dadka dulmiyaba xaqii looga raadiyo la yiraahdo wardaayo oo dee laga celiyaa lala hadlaa. Haddii uu wax dulminayana waa la qabtaa si uusan aakhiradiisana u seegin oo sida kanoo kale intuu ku dhinto isagoo dad muslimiina iyo magaalooyin muslimiina iyo caruuro iyo dad laynaya oo dagaalamaya oo dulmi ku dagaalamaya si uusan adduunka uusan u seegin oo aakhirana uusan cadaabka u gelin waa la qabtaa. Intaad soo daysid oo dareys u soo xidhid oo taageertid oo mabda' khaldan ku soo shubtid oo hub iyo lacag iyo raashin u soo dhiibtid baad shoolad soo dhex gelinaysaa. Markaasaa markuu gubtay ee la dilo baad leedahay Ilaahay u naxariiso jannada gee. Wuxuu jannada geeyaa waad halaagtay qofkaas. Dad kale oo muslimiinana oo badanna uu ku laayay Laascaanood iyo hareeraheeda. Dadku in badan Soomaalidu waxay isku khaldaan micnaha haddii laba qof oo muslimiin isdilaan labaduba cadaabtay galayaan bay khalad ka fahmeen. Haddii qofka muslimka ahi uu ku dulminayo oo uu deegaankaaga, naftaada, maalkaaga, cirdigaaga uu soo weeraro oo aad afisid oo aad dacwaysid oo aad ku codsatay inuu ku daayo oo wixii qaban karaba aad uga ergootid oo loo taag waayo oo uu markaa xabada kugu soo rido oo uu dad kaa laayo oo naftii jaro oo guryihii kaa dumiyo oo qaadicu dariiq intuu noqdo wadooyinkii kuu galo oo uu caddaysto inuu dhiiggaaga iyo naftaada iyo maalkaagaba bannaystay oo uu doonayo inuu deegaankaaga kaa qaxiyo oo aad iska celisid adigu shahiid baa tahay isaguna waa qof ehlu naara oo micnaha dariiq khaldan ku dhintay buu noqonayaa. Guud ahaanba dadka muslimiinta Ilaahay wuu ka xaaraantinimeeyey inay isdilaan. Laakiin haddii midkood uu dulmi samaynayo oo ka kale uu naftiisa iyo maalkiisa uu ugu yimaado wuu iska celinayaa dee. Waana xaaraan dadka muslimiinta inay islaayaan asal ahaan haddii micnaha labaduba ay khaldan yihiin markaa oo sidii maaragtay qabaa'iladan isku dila maaragtay waxyaabo kale marka wixii bay dadkan isku khaldayaan. Laakiin waa daalimiin weeyaan dadka Hargeysa Burco ka soo duulaya. Culimadoodii qaarkood way raacsan yihiin oo waxay sida Barbaraawi iyo rag badani way taageersan yihiin dadkoodu inay dagaalamaan oo dulmi sameeyaan oo xaq bay u arkaan. oo waxa weeye waa dad micnaha dee fahamkii islaamku ka qalloocday
oo ururo la yaqaano yani asalkooda waxay yihiin waa la ogyahay. qaarkii u arkayay inay xaqdarro dadkoodu wadaanna way iska aamuseen oo waxay is yidhaahdeen haddaad tolkiinna khaldan qabataanna waa laga garhelayaa oo dagaalkay ka joogsanayaan. haddii aad maxay ahayd toy tidhaahdaan xaq bay ku taagan yihiinna waad ku ceeboobaysaan oo dadka culimmada idin yaqaanaad ku sharaf beelaysaan oo minaha waad ku qiimo dhacaysaan. marka way ka aamuseen. qofka xaqa ka aamusaana waxa weeye waa shaydaan akhras weeye, waa shaydaan hoogay oo micnaha dhagalo oo indhala oo afla weeye oo aan hadli karin weeyaan. marka aamuskoodu waxa uu calaamad u yahay man sakata can shayin faqad radiya. qofka haddii xumaynta hortiisa lagu sameeyo uu ka aamuso raalli buu ka yahay. man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. qofkii hadduu munkar arko xumo waa inuu gacantiisa wax kaga qabtaa. sida hadda dadkan laascaanood joogay culimmada ah iyo garaadada iyo cuqaasha iyo qabaa'ilka meeshaa degan, markay arkeen dadkoodii oo la laynayo oo dhiiggoodii la daadinayo oo guryihii lagu duminayo, falyughayyirhu biyadihi bay samaynayaan. micnaha munkarkii lagu samaynayay bay gacantooda ku suulinayaan oo dadkii soo duulay dadka dilayay bay qisaas ahaan u dilayaan oo iska celinayaan. awooddooda intaasa oo micnaha awood fiican bay haystaan oo gacantooda wax kaga qabanayaan. laakiin qofka Hargeysa Burco joogay ee diinta fahamsan maxaa laga rabaa? fa bilisaanihi inuu hadlo oo uu munkarka nahiyo oo uu yidhaahdo war dadka uga soo baxa deegaamadooda oo beesha isaaq waa inay joogaan deegaankooda oo ay oog iyo wixii ka shisheeya iyo dhulka ay tagaan. haddiise ay ka aamusaan way la jiraan bay noqonaysaa. marka war aamuskiina kuwiina aamusanina waxa weeye qofka daalimka ah baad garab siiseen. kuwiina sida barbaraawi iyo hadlayna dulmigii baad taageerteen. kuwiina dee xabadda ridayaana adduun iyo aakhiraba waad seegteen. marka sida ninkan oo kale waxaasuu ku dhinta. mar kasta oo ay soo duulaana dad baa ka dhinta. muuse wiilal qurxa badanoo dhalaalaya buu ka soo diraa deegaanka, hadhowtana iyagoo meyd ahoo dhaawac ahoo boodhle buu ku celiyaa reerahoodii. qaar badanna wuu qariyaado micnaha inkastoo nin kasta oo dhinta gurigiisa laga tabayo. waagii Kalshaaleba saasay ahaayeen, guutooyin iska dhan oo lagu laayay Kalshaale dadkooda waa laga qariyay. sanada kadib bay ogaadeen dadkoodii markay nimankii iman waayeen. marka dhaqankaasi waa dhaqan ay leeyihiin. marka runtii maamulkaasi wuxuu ku socdaa dulmi fara badan. bishii Rabadaanna way soo gelaysaa. dadka reer Laascaanood naftooda iyo maalkooda ha difaaceen iyaga oo sooman. maxaabiista ay qabtaan yay si xun ula dhaqmeen, ha wanaajiyeen, ha u caqli celiyeen, ha hayeen. yaani sii daynin si ay dadka laga qabto hadhowto u dhaafsadaan oo isu wedaarsadaan. qofkii xanuunsan ee dhaawacana daweeya. waa muslim, waa Soomaali khaldan weeyaan. marka maxaabiista si wacan ula dhaqma oo wanaajiya oo kuwa idinka qabsadaan hadhowto kaga bedesha. oo runtii waa ayaan darro in dadkeenu saa isu dilo. laakiin waxaa sabab u ah maamulka Somaliland. deegaanka ay degan yihiin Buuhoodle iyo Laascaanood iyo Xudun iyo Taleex iyo Badhan iyo Hadaaftimo iyo Kalabaydh iyo maxaan dhahdaa maxay ahayd Laas Qoray iyo deegaamadaas maaragtay Ceerigaabo iyo yani deegaamada ay dhulbahantaha iyo warsingeliga iyo fiqishiniga iyo degan yihiin in dadka Burciya Hargeysa Berbera degan ku soo duulaan oo ay dhulka ay yiraahdaan waa qabsanaynaa oo dadkii deganaan nafta ka jaraan oo guryaha ka dumiyaan oo wadooyinka gooyaan oo madfac ku tuuraan waa dulmi de qof kasta arka. marka runtii Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu fahamsiyo xaqa. dadka goboladooda difaacanaya xaq bay ku taagan yihiin. waa dadka mujrimiinta noocaas oo kala ah laguma sii dayn karo maatada iyo caruurta. waa inay isdifaacaan dhulkoodana ka saaraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.